السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدك كوا هنونسان دادكنا هنونية دمان دادك برنامج كغفاعو كداوانا يا سومالي كنديان تي في كنا دغيسانا يا راديو بورمي CKMS 102.7 FM. برنامج كغفاعو أنتو مالين سنينة بيش فبراير 17 2025 شعبان 18 1446. barnaamijka gifaaco waxaan kusoo qaadanaynaa laba qodob. waxaa halkan ka baxay idaacadda iyo Somali Kaliyan TV waan summary ku samaynayaa barnaamijkii la magac baxay waa maxay dawlad wanaag nabad waarta. waxa barnaamijka sii daaya aqoonyahan Soomaaliyeed Professor Axmed Cali Mascuud. waxaanu barnaamijyadii hore kaga soo qaadanay oo kaga hadalay waa maxay dawlad wanaagu waa maxay, sidee loo heli karaa dawlad wanaagsan. nabad waa maxay, nabad waarta sidee loo helaa, nabada sidee loo ilaashadaa. waxa kale aynu soo qaadanay oo barnaamijka ku jiray waxyaabaha dawladda halbeega u ah. waxa kale oo ka mid ahaa sida loo saameyn karo, sidee loo saameyn karaa oo loo samayn karaa accountability. haddaba dadka barnaamijka dhagaysanaya cashirkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa sidee dawladda loo soo daadejiyaa, sidee xukuumadda loo daahfuraa oo loo soo daadejiyaa. waxaad ogtihiin dadka Soomaaliyeed inay qaateen federalism, sidee la iskugu xidhi karaa gobollada iyo central government. waxaa loo baahan yahay 4 qodob. 4ta qodob waa siyaasadda, dhaqaalaha iyo environmentka. siyaasadda marka laga hadlayo waxaa loo baahan yahay in la helo dad ilaahay ka baqaya oo ay ka tahay in ay daacad yihiin oo ay ku jirto cabsi ilaahay. midda labaad, in la helo dawladda adeegeegi, in la helo oo la gaadhsiiyo dawlad wadaagga dhammaan gobollada. barnaamijkaas oo aad hore u dhagaysateen oo summary idinku sameeyey, waxaan dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ka codsanayaa inay idinla socotaan barnaamijka dawlad wadaagga ah. dadka barnaamijka dhagaysanaya Somaliland ay waa sidee حاجة وصلنا Somaliland waa sidee saxano bay ahayd. iminka waxaa isweydiin leh Somaliland, madaxweynaha Somaliland Cirra wuxuu tagay Imaaraadka. waxa uu la kulmay madax fara badan sida uu sheegay. ilaa iminka shaashada kama hayno ama meel conference ay ku wada qabteen lama hayo. haddana shacabkii Somaliland waxyaalo fara badan oo uu kala soo kulmay madaxdii ayuu gaarsiiyey. waxaan rabaa dadka barnaamijkaygan meel walba ka daawanaya, habeen dhaweyd waxa ay wareystay barnaamij Hargeysa ka baxa. waxa aan idiin sheegayaa dadka Somaliland jooga inay idin noqotaan realistic. dadku runta inuu barto oo runta loo sheego oo aanay runtu idin dhibin. waayo nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, runtu yahdi ila albirri. runtu waxay dadka way wanaajisaa, janna lagu galaa. beenta naar baa lagu galaa. in delusion lagu jiro oo la isbadadaaliyo oo aan xaqiiqda laga wada hadlin meel lagu gaari maayo. anu inaad dawlad noqotaan ood wax qabsataan gacantaydana kuma jirto. anigu waxaan ka imiday awdal, laakiin anu maxaan jecelahay oon fikirkaygu yahay inaan idinka fikir duwanahoon anugu ahay nin I'm proud oon ku faraxsanahay inaan Soomaali ahay.
identitygayguna Soomaaliya idinku haddaynu fikri kala duwannahay markaan runta ka hadlaya inay idin dhibto maaha waan daawaday waan akhristay communiska waxa aan idiin sheegayaa ku gaari maysaan inay idin isku madadaalisaan waxaan reality-ga ahayn runtuna wuxuun bay hagaajisaa aniga waxay iga tahay inaan runta idiin soo gudbiyo wanaaggiina iyo waxtarkiina waan ku faraxsanahay waxaanse idiin sheegayaa in laga baxo delusionku waa maxay waa seeing something is not real nooc min adream ictiraaf dowlad qaran laakiin aan lahaynin waddadeedii meel lagu gaari maayo Somaliland waxaan u sheegayaa waxa la yaab leh oo aan ummadda la wadaagayaa in wasiirka awqaaftu maalin dhoweyd hadal yidhi hadalkii saxaafaddu intay soo duubtay baa la masaxay iyada oo la ilaalinayo waxaan barnaamijkayga kaga hadlay in ay tahay in xumaanta la faafiyo inaanay ahayn wax wanaagsan laakiin hadalka uu ku hadlay markaynu realistic noqono runta isku sheegno wuxuu tegay uu ka mid ahaa wafdigii tegay dalka Dubai imaaraadka dadkii tegay buu ka mid ahaa Dubai dadkii shirka kula kulmay buu ka mid ahaa madaxda waxyaabihii message-ka loo dhiibay isaga oo uu ka hadlayay madaxweynaha Somaliland oo uu lahaa dad baa imanaya dad baa investment gashanaya wasiirku wuxuu sheegay dadka imanaya ee gaalada meelaha ilaahay ku caabudaan in loo samaynayo laakiin arrintii waxay noqotay in bulshada Somaliland ee diinta jecel ee midnimada jecel loo arko inay dib ku noqoto dabadeed cajaladihii la masaxo bulshadiina la dhalan habaabiyo waxyaalaha la yaab kale waxa ka mid ah Somaliland waxa imika soo baxay isla iyaga unbana soo gaarsiinaya waxa ay shirkii khamiista ee wasiiradu galayeen laga mamnuucay inay ka soo qayb galaan wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha Somaliland hadalkaasi waa maxay waa sir fakatay awgeed weey waxaan shacabka la wadaagaya shayga la yiraahdo amaanada waxa ay ka mid tahay waxyaalaha dadka muslimiinta ah loo baahan yahay inay ilaaliyaan amaanadu waa laba qaybood mid jidhka qofka bilaadanka ilaahay ku amaanaystay nafta bilaadanka ilaahay kugu amaanaystay aqliga bilaadanka ilaahay kugu amaanaystay iyo waajibaadka ku saaran ee ah salaada iyo cibaadooyinka kale arkaanta islaamka waxa wanaagsan xuquuqda waalidka waxaasoo dhan waa lagu weydiinayaa waana lagugu ciqaabayaa haddii wuxuu ilaahay ku amray aad yeeli weydood qiyaamo la timaado midda labaadna waa maxay waa mid dadka ka dhaxaysa bulshada dhexdeeda shaqaa lagu dhiibay xil baa lagu dhiibay hadal ammaano ah baa lagu dhiibay nebigu wuxuu yidhi almajaalisu alamaana majaalistu waa inay noqdaan ammaano meel sir leh madaxtooyada Somaliland marka hadallada ka baxaya dibadda loo faafinayay waxay sumcad xumo iyo amaan darro u tahay wasiirkada iyo madaxda meesha fadhiya marka arrimahaasi waxa ay keentay in iyagoo waliba khaladkaasi hore u dhacay haddana khaladkii khalad lagu sii soco isla iyagii oo lagu yiri ma imanaysaan haddana bulshadii kale ee Somaliland iyo saxaafadii la gaarsiiyay hadalkii waxaan leh oo aan dadka Soomaaliyeed iyo Somaliland leeyahay Somaliland ay waa sidee xaggay u socotaa Somaliland haddaydaan runtii jeclayn waxaad jeceshiin khiyaamada iyo beenta iyo istabamarka Somaliland waxa ay leedahay guddiga commissionka maamul wadaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland waxay leedahay garyaqaan guud xeelaliyaha guud commissionka xuquuqul insaanka waxaasoo magaca oo shaqeeya lacag baa lagu qaataa miyaydu mari aragteen mid musuqmaasuq baa lagu xidhay leeyahay maya maalinta dhaweyd wasiirka awqaaftu waxa uu ka hadlayay meel ay ahayd daahfurka
xeerka takoorkay ahayd marka yaa la raalli gelinayey dad imanaya iyo dad jooga oo hay-adaa baa raalli gelinayay marka laleeyahay meel cibaada loo samaynayaa iyaga ayay ahayd laakiin ummadda waa la jahawareerinayaa runtana waxa wanaagsan in dadka lagu dhaqo nebiguna wuxuu yidhi addoonku run kuma dadaalo ilaahay agtiisa runlaa laga qoraa janno ku galaa addaanku been kuma dadaalo beenta naar baa u ahaatay futuurnimaa laga helaa waxaan dadka la wadaagaya oo aan somalilan la hadlayaa oo aan ugu celcelinayaa inayna noqotaan dad realistiga oo runta ku dhaqma naftooda iyo dadkooga halka barnaamijkaad ka daawanaysaan waa Somali Karen TV kana dhegaysanaysaan radio Borama CKMS 102.7 FM waana wata fatira xaamud suldaan cali cilmi suldaan